Warsame wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aqoon u saaxiib ah, balse hamigiisu wuxuu u kaxaystay dhinaca buuraha dhaadheer ee Goolis, gaar ahaan tuulo qadiimi ah oo lagu magacaabi jiray Godmadow. Tuuladan ma ayan ku jirin khariidadaha casriga ah, waayo dadku waxay ka qaxeen 60 sano ka hor kadib markii habeen kaliya ay ku dhinteen in ka badan 100 qof iyadoo aan la garanayn sababta. Warsame wuxuu watay boorso ay ku jireen qoraallo duug ah oo uu ka dhex helay alaabtii uu ka dhaxlay awowgii. Qoraalladaas waxay sheegayeen in dahab iyo hanti badan ay ku dhex qarsoon yihiin gurigii weynaa ee qoyska, balse waxay sidoo kale ka digayeen guuxa madow ee gurigaas ilaaliya. Markii uu gaadhay tuulada, wuxuu arkay guryo dunsan oo ay geedo qodax leh dhex mareen. Hawada meeshaas ka jirtay waxay ahayd mid culays badan oo qofka dareensiinaysa in boqolaal indhood ay gees kasta ka soo eegayaan. Cabsi aan caadi ahayn ayaa jidhkiisa jidhidhico gelisay, balse hunguriga hantida ayaa ka xoog batay baqdintii haysay. Gurigii awowga wuxuu u taagnaa sidii buur madow oo dhex mudan cirka. Derbiyadiisa waxaa ku yaallay dildilaacyo u eg weji bini'aadam oo qaylinaya. Warsame wuxuu soo istaagay albaabka weyn ee qoriga adag ka samaysnaa, kaas oo lahaa xidhidh miriray. Markii uu riixay, albaabku wuxuu soo saaray dhawaaq dheer oo u ekaa qof xanuun darteed u ooyaya. Isla markii uu cagta gudaha u dhigay, laambadiisii uu gacanta ku hayay ayaa bilig tidhi kadibna iskeed u bakhtiday, inkasta oo saliiddu u buuxday. Gudcurkaas dhexdiisa wuxuu maqlay neefsasho culus oo ka imaanaysa geeska qolka. Cod hoose oo u eg mid dhulka hoostiisa ka soo baxaya ayaa yidhi, ma waxaad u timid inaad dhammaystirto wixii awowgaa bilaabay? Warsame wadnihiisu wuxuu bilaabay inuu feeraha jibiyo, gacmihiisuna waxay noqdeen kuwo gariiraya oo aan qaban karin xataa kibriidka. Isagoo farihiisu gariirayaan, ayuu Warsame ku guulaystay inuu mar kale shido laambadii. Iftiinkii daciifka ahaa wuxuu muujiyey wax ka naxdin badan mugdigii. Sagxadda guriga waxaa yaalay raadad dhiig ah oo weli qoyan, kuwaas oo u ekaa in wax weyn oo culus lagu jiiday meesha. Raadkani ma ahayn mid bini'aadam, waxay lahaayeen 4 farood oo dhaadheer iyo cidiyo dhulka jeexay. Raadku waxay u horseedeen dhinaca jaranjaro alwaax ah oo u dhaadhaca qaybta hoose ee guriga, godka dhulka hoostiisa ah. Jaranjarada kasta oo uu ku istaago waxay soo saaraysay dhawaaq u eg lafo jabaya. Isagoo hoos u sii deganaya, qabowga meesha yaalay wuxuu gaadhay heer uu Warsame arkayay uumiga neeftiisa, inkasta oo deegaanku bannaanka ka ahaa kulayl xad-dhaaf ah. Markii uu gaadhay salka hoose ee godka, wuxuu arkay muuqaal habeenno badan hurdada u diidi doona. Saaxiibkiis Cilmi, oo toddobaad ka hor lalaa, ayaa ku xidhnaa derbiga isagoo silsilado miriray ku xidhan. Cilmi ma lahayn indho, godadka indhihiisuna waxay ahaayeen kuwo madow oo dhiig engegan ku yaalo. Maqaarkiisu wuxuu ahaa mid cad oo u engegan sidii hilib la qalajiyey. Cilmi ayaa madaxa kor u soo qaaday, inkasta oo uusan waxba arkayn, wuxuuna ku yidhi cod gariiraya, Warsame, halkan ka carar intayna goorigoor tahay. Isagu ma rabo dahabka, wuxuu rabaa dhiigga ku dhex jira xididadaada. Heshiiskii awowga wuxuu ahaa mid dhiig lagu saxeexay, adiguna waxaad tahay bixintii ugu dambaysay. Cilmi wuxuu bilaabay inuu ooyo dhiig, isagoo ka baryaya Warsame inuu dilo si uu uga naxariisto xanuunka. Si lama filaan ah, gurigii oo dhan ayaa bilaabay inuu gariiro. Qaylo aad u weyn oo u muuqata boqolaal cod oo isku qasan ayaa ka timid dabaqa sare. Warsame wuxuu arkay hoos madow oo aad u weyn oo ka soo dhex baxaya derbiyada. Hooskaas ma lahayn wax jidh ah, laakiin gacmihiisu waxay ahaayeen sidii makiinadaha wax lagu gooyo oo kale. Indhihiisu waxay u ifayeen sidii 2 dhuxulood oo dab ah. Kan wuxuu ahaa guuxa, jinni hore oo reerka Warsame u adeegi jiray kadib markii habaar lagu xidhay. Makhluuqaadkii ayaa bilaabay inuu soo dhowaado. Warsame wuxuu dareemay xoog weyn oo dhuunta kaga dhigay, isagoo kor loogu qaaday hawada iyadoo aan cidna taaban. Hawadii qolka ayaa ku yaraatay, wuxuuna bilaabay inuu dareemo in naftu ka baxayso. Warsame isagoo hawada ku lulanaya, ayuu xasuustay qoraalladii awowgii. Mid ka mid ah bogga wuxuu sheegayay in guuxa uu ku xidhan yahay maqaarka heshiiska, oo ah warqad laga sameeyey maqaar bini'aadam oo lagu qoray dhiigga dadka u horreeyey ee reerka. Haddii warqaddaas la gubo, habaarku wuu jabi lahaa, jinniguna wuxuu ku noqon lahaa halkii uu ka yimid. Warsame wuxuu ogaaday in sanduuqa yar ee Cilmi hor yaalla uu yahay kan ay ku jirto warqaddaas. Isagoo dhibtoonaya ayuu isku dayay inuu laambadda u tuuro dhinaca sanduuqa, laakiin makhluuqaadkii ayaa ku dhuftay derbiga isagoo aad u xoog badan. Warsame feedhaha ayaa ka jabay, balse weli wuu noolaa. Makhluuqaadkii wuxuu bilaabay inuu qoslo, qosolkaas oo ahaa mid qof kasta oo maqla uu waali lahaa. Awowga wuxuu ii ballanqaaday dhiigga ubadkiisa ilaa jiilka 7,
ayuu yidhi guuxa isagoo codkiisu u dhow yahay dhegta warsame. Warsame wuxuu ogaaday inuu isagu yahay jiilkii 7. Isagoo gurguuranaya ayuu gaadhay sanduuqii. Wuxuu ka dhex helay dhalo yar oo ay ku jirto xinjiro dhiig ah iyo warqad maqaar ah oo urqadmuun leh. Markii uu gacanta saaray warqadda, gurigii oo dhan ayaa bilaabay inuu dumo, dhagaxyada saqafka ka soo dhacayaana waxay u muuqdeen inay ka fogaanayaan sanduuqa, taas oo caddayn u ahayd in halkaas ay tahay xudunta habaarka. Guuxa ayaa isku soo duubay Warsame, isagoo isku dayaya inuu ka xoogo warqadda. Warsame wuxuu dareemay qabow sidii baraf oo kale ah oo jidhkiisa dhex galaya. Isagoo isticmaalaya xooggiisii ugu dambeeyey, ayuu kibriit ka soo saaray jeebkiisa. Hal laydh oo yar ayuu shiday, makhluuqaadkiina wuxuu ka naxay iftiinkaas yar. Warsame wuxuu qabtay warqaddii wuxuuna saaray dabkii kibriitka. Isla markii uu olol ku taabtay maqaarka, makhluuqaadkii wuxuu bilaabay inuu u qayliyo sidii 1,000 qof oo hal mar la gubayo. Gurigii oo dhan ayaa waxaa qabsaday iftiin guduud ah, derbiyadii guriguna waxay bilaabeen inay u dhalaalaan sidii shumaca oo kale. Dabka ayaa si xawli ah u faafay, isagoo gubaya wax kasta oo ka mid ahaa habaarkii qoyska. Warsame wuxuu u orday dhinaca Cilmi, wuxuuna isku dayay inuu ka saaro silsiladaha, laakiin Cilmi wuxuu ahaa mid dhimasho qarka u saaran. Idhaaf, Warsame. Naftaydu mar hore ayay tagtay, ayuu yidhi Cilmi isagoo dhoolla caddayn naxdin leh wejigiisa ka muuqato. Warsame wuxuu ku qasbay inuu soo jiido saaxiibkiis, balse saqafkii guriga ayaa soo dumay, isagoo u kala qaybiyey labadooda. Warsame isagoo ooyaya oo dhiig baxaya ayuu ka baxay godkii, wuxuuna ka booday daaqad weyn xilli gurigii oo dhan uu noqday olole weyn oo cirka u baxaya. Isagoo bannaanka yaala ayuu arkay hooska guuxa oo ololka dhexdiisa ku milmaya ilaa uu ka noqday dambas. Markii waagu baryay, Warsame wuxuu ahaa qofka kaliya ee nool ee ku haray tuuladii Godmadow. Gurigii weynaa wuxuu noqday dambas, Cilmina jidhkiisii lama helin. Warsame wuxuu dib ugu laabtay magaalada, laakiin ma uusan ahayn ninkii hore. Timahiisii waxay noqdeen kuwo cad, indhihiisuna waxay had iyo jeer eegi jireen geesaha mugdiga ah. In kasta oo uu gubay heshiiskii, haddana habeen kasta marka uu seexdo, wuxuu maqlaa xoqan ka imaanaya sariirtiisa hoosteeda iyo cod leh, weli dhiig baad igu leedahay. Tuulada Godmadow maanta waa meel ay ka dhex muuqato raadkii dabka, dadka deegaankuna waxay sheegaan in habeenka dhexdiisa laga maqlay qaylo iyo guux ka imaanaya buuraha, taas oo xasuusin u ah in shar weyn uusan marnaba si buuxda u dhiman.